Mandera waa xudunta xadka Kenya, Soomaaliya iyo Ethiopia. Sanado badan Mandera ayaa qarka u sarnayd amni darro. Juqraafi ahaan marka laga soo tago, xadka ayaa haddana mid kale oo sababa arrimo badan oo saameeya Mandera. Shacabka ayaa u soo dhabraaday amni darrada. Xalqada xigta ee barnaamijka danta dalalka dariska waxaan tirada ku saaraynaa dadaalada iyo siday markaasi bulshada uga caawin karto laamaha amniga, wada shaqaynta iyo sugidda amniga. Barnaamijka danta dalalka dariska iyo xalqada ugu dambe wajiga koowaad dhigtana u raarici Dawa FM gorsheegtadu kolkay soo dul istaagto labada duhurnimo axada. kulan wacan dhageyste ku soo dhawow barnaamijka toddobaadlaha danta dalalka dariska oo ku qaada dhigno arrimaha shacabka xuduudda wadaaga iyo danta bulshada dariska. waagu markuu dilaaco oo ay cadceedu ifayso kuna dhacayso carada Mandera, hadallo iyo sheekooyin badan ayaa dadka dhexmara, kuwa runa iyo kuwa beena. bulshada isku xiran ee isku wada duuban, warka si xawli ayuu u dhaxsaaqaa uguna faafaa dhaqsi. suuqa ilaa iyo masaajidka, qoys erey iyo hadallo ayaa la iskula dhaafaa, laakiin waxaa ka dhalan kara sheekada kolkay nuskeedu runta ay kolkay sheekadu xambaarsan tahay xan aan raad lahayn oo curisa cabsi aan jirin. maanta waxaan isla baranaynaa kala sooca beenta iyo runta, wararka saxda iyo kuwa been abuurka, kuwa cusbada leh iyo kuwa la buunbuuniyey baraha bulshada. aan ugala soconno wararka xanafta leh ee been abuurka iyo kuwa buundada midaynta ah fahanka iyo runta ku dhisan. kasoo qaad waxaad taagneed qarka River Dawa, waxaad aragtay hir dhaqaaqaya, ma kalluun baa, ma caleen baa, mise waa wararka been abuurka waa sidaasi oo kale, waxay mugdi galshaan xaqiiqda. Mandera, wararka been abuurka sida xaaladda caafimaad iyo colaadaha runtii way badbadaan sida dabeesha. marka waxaa muhiim ah in la taxraaco lana barto kala soocidda wararka. barnaamijkan ayaa ka kooban xubno xiiso badan, balse marka hore aynu maqalno gundhiga xalqadeena. hadda ka hore waxaa jiray cod fariin WhatsApp group lagu dhex wadaagayay ahaa adeegyada caymiska caafimaadka ee SHA iyo talaalka xoolaha uu yahay mashruuc qiyaali ah oo lagu boobi rabo deeqda dawladda oo aanay u fiicnayn dalka. cabsi badan ayaa ka dhalatay, isbitaallo badan ayaa diiday ka hor imaaday, balse hadda dad badan ayaa fiicni ka sheegayaan adeegyadaasi oo soo dhaweeyay. runtii wararka saxda iyo kuwa beenta sidoo kale kala sooci karaa. adkaysiga Mandera wuxuu ku xiran yahay wadajirka, xadka, qabaa'ilada iyo qoysaska. kolkaan baraha bulshada u adeegsano si wacan, buuqa ayaa yaraada oo rajada ayaa badata. waxaanu noqonnaa kuwa runta ku dhaqma, dhisa bulshada, haddana dhowra wadajirkeenna. markay dadku isku xiran yihiin qoys iyo qabiil, wararka been abuurka ayaa si fudud oo sahlan ku faafi kara. laakiin waxaa mar walba leenahay fursad aan kaga digtoonaani karno wararka been abuurka, siba kuwa xumaanta shiila ee salka ku haya xogaha qabaa'ilada, qoysaska, amniga iyo bulsho weynta. la soco anigoo ah Ibraahim Nuuro Cabdiraxmaan. waxaa barnaamijkan marti noogu ah Cabdi Meja. cabdi, ku soo dhawow barnaamijkeena. waa tahay Cabdi Meja, marka hore barnaamijkeena ku soo dhawow, inoo faahfaahi wararka been abuurka ee raad iyo sal toona lahayn. maxay kaga duwan tahay wararka qaldan iyo kuwa buunbuuniska leh? horta wararka been abuurka waa waxyaalaha ugu weyn haddeertan aan wajahayno haddaan nahay jiilka hadda joogo. maxaa yeelay wax walba oo haddeertan lagu dhaqmo waxaa lagu saleeyaa warar been abuur ah oo mararka badi la bambuuniyo ayadoo la isticmaalayo aaladaha kala duwan oo la isku gudbiyo fariimaha. wararka been abuurka kan ugu weyn oo haddeertan la isticmaalo waxaa ka mid ah wararka siyaasadda ku saabsan. waxaad arki waxyaalo fara badan oo dhibaato keeni karo, oo khalaaf keeni karo, oo xumeyn keeni karo, oo naceeb keeni karo oo ku saabsan siyaasadda in la isla dhex maro oo la faafiyo oo la bambuuniyo, taasoo keenayso naceeb iyo dawladda waqtigaas shaqaynayso la naca, dadkii madaxdii oo la naca, bulshadii oo ayagana leemo oo qabiil isku nacaan ay keenaysaa. marka wararka been abuurka waa arrimaha ugu weyn oo taagan haddeertan oo dhibaatooyin ku haya bulshada. waxaa dhici karta wararka been abuurka badi haddana la faafiyo siyaasad kale inaysan ahayn oo marmar ay war jirin oo la xaqiijinin oo ku saabsan dhibaatooyin oo
dhici karta dad inuu qof dili la dhaha mise qofaa wax xadi la dhaha mise qofaa wax kubsadi la dhaha oo marka been abuurkii la faafiyo oo dhibaato ay ku soo gaarto marka qof oo laga yaabo inuu yahay qof oo dembigaas geysanin marka ayadoo marka loo marin sharciga looga targalay ayaa dadka waxay sameeyaan inay warkii bumbuuniyaan ay hawada geliyaan ay meel walba taabsiyaan oo qof laga yaabo inuu dhib geysan oo dhibaato ka soo gaarta marka wararka been abuurka saas ay ugu duwan yihiin wararka sax la gudbiyo mid kale waxaa jirtay been abuur oo jiray waagii COVID-19 ka coronavirus-ka marka waan kasii hadli doonaa anagoo sii dhexgalayna arrintaas marka wararka been abuurka saasay dhibaatana u geysan karaan ay ugu duwan yihiin wararka kale waa maxay wararka inta badan beenta laga sheego haddaan nahay bulshada Mandera warka badi kan ugu weyn oo beenta laga sheego waxaa ka mid ah siyaasadda waxaad arkaysaa qofka siyaasiga asagoo inuu samaysto rabo wiji ama bulshada soo jiito wax oo asaga uusan hubsanin ama uun xaqiiqdeeda ogeyn inuu yacni magaalada gashto mise dad siyaasadiisa waa raacsan oo asaga taageersan inay magaalada geliyaan waxaa dhacday hadda soonkan soo dhaafayni bishii dhamaal oo soonka anaga waxaan ku jirnay dhibaato weyn badan oo aan kala kulubnay arrinta Kenya Power and Lighting oo magaaladii ay zayd dhulku u kululay qoraxda zayd u kululeed oo magaaladii ay koronto la'aan ahayd marka intii soonka bilaabanin oo soonka diyaar markuu ahay waxaan arkaynay mudanaha laga soo doortay Mandera East asagoo saaran gaari oo matooro lagu soo rarahayo oo matoorihiina intaas oo maalin soo safreen Mandera ay imaadeen markii la rakibana aysan noqonin wax Mandera anfac taas waxay u dhigan tahay marka in wixii la hubsanin wixii la soo diray la hubsanin oo siyaasadda dadka sidii oo ummadda niyadooda loo soo jiito oo siyaasadii kasto wiji loo yeelo siyaasadii la sii horumarsado in wax la hubin marmar ay ka hirgalaan inoo warbixinta ama waxyaalaha been abuurka la sheegay waxaa dhacday markii shacabkii Mandera kuwii taageersanay MP-ga ama siyaasadiisa ayagana inay soo dabaaldigeen soo banaan baxeen oo banaan bax weyn la sameeyay oo taas qofkii Mandera ka maqan mise banaanka jira uu arkahayo arrin zaid u weyn oo lagu guuleystay oo marka dhibaatadii korontada ee Mandera inay ka baxayso qof kasta u aaminay arrintiina marka sidii ma noqon waxay ka mid noqotay marka waxyaalaha lagu faafiyo been abuurka iyo bumbuuninta waatahay dadka inta badan wararka been abuurka way iska aaminaan ayagoo hubsanan marka maxaa ka dhiga dadka inay aaminaan kuwa ku tiirsan wararka been abuurka inta badan dadka horta dadkana waxa ay aamineen fara qabiilaysiga ama waxa fara qabiilka loo yaqaan ama waxay aamineen qof walba leenka siyaasadda isagoo uu ku xiran yahay marka waxaad arkaysaa qofkii oo wixiina fahmi karo oo wixiina inay sax ahayn arkahayo oo marka haddana wixii ayagoo qalad ah ku qaato dhibaato walba ha keento waa mid ugu weyn leenka siyaasadda qofka ku xiran yahay asagoo fiirinayn horumarkii dhibaatooyinka horumarka la filayay iyo dhibaatooyinka ka iman kara asagoo fiirinayn qofka iska taageeraya asagoo indhaha ka dadanaya wixii runta ahay mid kalena waa wax qabiil keeno oo qofka qabiilka markuu keena wax walba oo qalad oo ninkan qabiilkan ka dhaca qabiilkiisa waxay ka doorbideen inay ku difaacaan qaladkaas ayna fiirinin wax qabadkii iyo faa'iidooyinkii laga rajeynayay qofka madaxda ah marka ama dawladda waqtigaas jirtaba marka dhibaatooyinka waxa keena waxaas waaye ma ahan dadka ma fahansana ma ahan dadku way fahamsan yihiin laakiin ayagoo fahamsan ay indhaha ka dadanayaan ay ku taageerayaan wixii qalad ay arkayaan tahay marka wararka been abuurka iyo war la'aanta keebaa xun sababna ma noo sheegi kartaa been abuur war la'aan dhan maxaa yeelay been abuur dhibaatada Kenya ka badan dembiga Kenya ka badan laakiin war hadduu jirin ayaa dhaanta been abuur warka war la'aan ma jirto oo war sax ah oo la gudbin karo ayaa jiro waxyaalo oo dadka kulli u fiican oo faa'iidada dadka kulli ku jirto oo wax jamci wax taray ayaa jiro oo la sheegi karo laakiin haddaan maanta qofka aad nacabtay nacab daraadiis ama shakhsi nacab ama siyaasad u nac ama qabiil u nac daraadiis ayaa wax been abuur u sheegaysaa wixii been abuurka ninkiina istaraatiijigu sameysanayaa asagana been abuurkii ayuu asagana been abuurka ugu soo jawaabayaa
ama difaac ayuu galhayaa marka marba haddii been la sheego oo qofkii beenta laga sheegana difaac galo been kale ku difaac gala dhibaato ka dhalan karta meeshan okay waxaan soo marnay xiliyaal oo khatar ah oo waqtigii coronavirus ko kaleeta waxaa la dhahay waxaa la soo bixiyey tallaal oo loogu hortagayo coronavirus laakiin waxaa la keenay warar been abuur ah oo la bunbuniyey oo magaalada la geliyey oo leh qofkii cirbadan mise tallaalkan la duro kow inuu ma dhalo noqonayo ama waraabo noqonayo ama 3 sano ka bacdiba qofkaas dhimanayo oo wixii la durahayba dadka laga dhacsay inay sun tahay hatta tallaalka polio naftirkiisa oo dabeesha oo wiligiisba la tallaali jiray oo cunugu markuu dhasho iyo wiligiisba la tallaali jiray dad qaar waxay ka dhacsan tahay tallaalkan in looga dan leeyahay qofkan cunugaanayto inuusan dhali doonin ama dhibaato oo kala kulmi doono waxyaalo saan oo kale been abuur dadka laga dhacsiya jir ummadayna badi waxay aamintaa marka wixii oo been abuur oo la keeno oo run loo ekeysiyo oo caafimaad la xiriirsiyo inay ka fogaadaan coronavirus waxa dadkii cirbada diiday tallaalka diidana ka mid ahay aniga naftirkay leema durin waxaan ahay dadkii aaminay in dadka qofkii la duro 3 sano ka bacdi inuu dhimanayo ma dhalo inuu noqonayo ama dhiigiisa dhiig waraab lagu shubi doono oo nooc kale uu noqonayo laakiin dadkii durtay waagaas hadeertan muddada laga joogo waa dareemi kartaa 3 sano durb waa la dhaafay qof waraabo noqdana ma arkin qof dhintana ma arkin qof ma dhalo noqdana ma arkin ha marka Soomaalida wararkan been abuurka wayna jecel yihiin badidoodan way aaminaan marka wararka been abuurka waxa dhaanta war la'aan waa tahay tusaale fiican waa maxay qaladaadka ugu waaweyn ee dadka ay sameeyaan kolka ay isticmaalayaan application sida WhatsApp Facebook mise TikTok inta badan waxa lagu faafiyaa social media tusaale ahaan aniga hadda WhatsApp ku jira waxa laga yaabaa inay fariin ii soo dhacdo isla qaladaadkaasi markay fariinta ii soo dhacdana warkii hubsan waxa laga yaabaa inaan la boodo oo status soo dhigto bulshada inay warkii ku faafiyo qaladaadka ugu weyn oo dadka ka dhaca waxa war aan la hubsanin oo la faafiyo saadiga ka dhawaajisay war aan la hubsanin oo la faafiyo arrimaha horta baraha bulshada dadka badi waxay ku raadsadaan views dadka badi content ay ku raadiyaan ay content ay ka sameeyaan qof becsharadiisa oo ugu targalay inay dad badan ay arkaan ay dad badan wax ka dhahaan ugu targalay ayaa waxay sababi kartaa inay dad badan aaminaan qaladkaas ay tahay dhibaatana ay keento waxyaalaha far badan la soo dhigo waxa waxyaalaha taabta qabiilaha isla dego iyo waxyaalo ku saabsan taariikhda Soomaalidu waa dad xoolo dhaqata oo guuraa waaye marka qof walba qabiil walba awal meel ay degi jireen jira taariikhi marka awalna ma jirin waxaan hadda dhulka la boobahay oo dhulkii uu noqday bacsharo oo wax walba laga sameeynahay ma jirin qofka maanta waxa laga yaabaa inuu sanadkan meel fulaan dego oo meel fulaan beer ku abuurto oo dalag fiican ugu soo go'o oo marka meel hadana ka sii fiican oo ka sii doog fiican hadana u guuro sanadka kale ayaa dhici jirta wixii marka waxay sameeyaan dad qaarkood oo inay dhibaatooyin ku sameeyaan rabaan waxay ka qoraan documenti ay baraha bulshada ay soo geliyaan ku kala marka oo waxaan baxba u arkayna asagana wixii iska soo copy gareynaya wixii WhatsApp forum adduunka jiru gelinaya wixii Twitter ay u gelinaya marka wixii waxay dhalini aana qabiil oo cusub qof walba oo hadeerta marka taariikhdaas helay waxa marka soo gali maadaama hadda dhulkiina uu yaraaday oo dhul beerna hadda la arkaynin waxa soo gali qofka marka dhul ay ka maqan waxyaalaha farada badan oo dadka taariikhda xasuusiyo oo dhibaatada keenay ka mid tahay marmarna waxaad arkaysaa war oo la iska qoray oo laga fikirin ayaa qof soo gelina markaas ay kumanaan kale ka koobi gareynayaan marka baraha bulshada waxay ka mid tahay meelaha ugu badan oo colaadda lagu horiyo oo dhibaatada dadka looga geysto hadaa fiirsad inta qabiil is dagaalayso mar dhow waxaa ka jiray qabiilo isku dagaalaya Ramo ka hor waxaa jiray qabiilo isku dagaalaya Banisa mar walba qabiil dagaalkan qabiil uu wareega dagaalka qabiil wax lagu faafiyo oo ugu weyn waxa way baraha bulshada waxa guri lagu gubay Soomaaliya ama meel kale ayaa la soo qaadan hadda waxa dhicisay in la soo qaadanahay waagi Gen Z iyo mudaharaadadii
dhulkii la gubay iyo wixii meel kale colaad fara badan oo ka weyn ee ka dhacday oo barakac ka dhacay oo waxyaalo fara badan la gubay la soo qaadanaya waa la isku attach gareynaa waa la gelinaa wixii marka sidii lagu bamboonaa meel fulaan ayaa laba qof isku dagaal isku dakhri labada qof iyo wixii dhiigii iyo wixii baa la soo sawiraa social media la soo gelinaa waxaa loo bedelaa marka qabiil fulaan laba qof aan isgaftiya qabiil fulaan maanta qabiil fulaan meel fulaan ku weeraray intaas qof aan dhaawacay waa dad iska hor imaaday oo buuq dhaxdooda ka dhacay ama isgafeen oo yar oo qabiilna waxba ku lahayn wixii marka waxaa laga dhigaa inay arrin qabiil ay tahay dadkii kale oo marka qabiil fulaankii kalena wixii kama fiirsanayaan meel walba ay waxaas ku jiraan waa la sii gelinaa arrintii marka waxaa laga dhigaa arrin weyn oo qabiil ah waxaad arki marmar marka isagoo dagaal qabiileed uu dilaacay oo barakac ka dhashay oo dhimasho ka dhacday oo kufsi dhibaatooyin fara badan lagala kulmay marka waxyaalahan farada badan marka dhacayeen waxa bazinka oo dabkaas shidahay ugu weyn waxa ay baraha bulshada cabdimeeji aad baa u mahadsan tahay su-aashaasi si wanaagsan oo ugu jawaabtay sidee loo hagi karaa dhalinta markay timaado adeegsiga baraha bulshada si dhanka horumarka looga adeegsado oo calaadaha aan looga adeegsanin dhanka wanaagsan si dhalinyarada ugu hagaajin karaan dhanka social media baraha bulshada horta dhalinta waa inaan ogaanaa baraha bulshada hadeertan social media inuu yahay safe laba afqabto seeftan laba dhinac bay wax u goynaysaa ama si fiican aad u isticmaali oo wax fiican baad ku goosani ama si xun baad u isticmaali ee dhibaato iyo dhib iyo barakac iyo dhimasho ayaad ku sababaysaa baashan social media la dhahaa waxaad u isticmaali kartaa qaab wanaagsan oo becsharo aad ku samayn kartid ayada naftirkeeda aad ka samayn kartaa shaqo online jobs ayaa jiro aad ka samayn kartid dadka fara badan TikTok ay lacag ka sameeyaan views-ka badan haysto oo followers-ka badan haysto dad badan YouTube-ka lacag ka sameey Facebook ayaamaha lacag laga sameeyaa mid kale becsharada ayaaba advertisement ku samayn kartaa waxa ku xayisiinaysaa becsharadaadii waxaad u isticmaali kartaa qaab lagu faafiyo diinta waxaad u isticmaali kartaa qaab oo dadka lagu mentor-gareeyo oo lagu motivate gareeyo oo entertainment noqonayso oo wax soo saarna ku noqon karto information fiican ayaad ku gudbin kartaa laakiin haddii aad u isticmaashid baraha bulshada nooc dab hurinaya nooc dagaal oogaya waxaad sababahaysaa noloshaada ayaa khatar gelinaysaa nolosha ummadii adiga kugu xiriirtay ehelkaada khatar gelinaysaa meel ee colaad ay ka dhalatayna adigana kuma fiicano wixii adiga kugu xiran oo ehelkaadana kuma fiicano dhibaato far weyn ka dhalayso marka dhalinta waxaan rabnaa mar ku wax bartay badi waxa isticmaalaan oo social media waa dadkii wax bartay adiniyo wax baad baratay gabaray wax baad baratay wixii aad baratay waxay noqdeen wax ummadda dhibaato looga keena meeshii laga rabay inay manaafacaad fara badan oo faa'iido u noqoto bulshada cilmiga aad baratay oo ku sahlay inaad isticmaashid baraha bulshada waxaa laga rabaa inaad wax fiican aad ku faafisid oo ummadda nolosheeda wax ku soo taraya aad ku suubisid ma ogi inaad dhibaato ku ogtid maahan marka waxaan ugu baaqi lahay dhalinta inay social media baraha bulshada ay u isticmaalaan sida faa'iidada leh aysan u isticmaalin nooca dhibaatada leh kuwa wax fahansan oo social media fahansanna kuwa saaxiibadooda oo classmate-gooda ah oo is aqaanaan isku qeyrka yihiin oo kala nooc xun u isticmaala waa inay waaniyaan ayna u sheegaan waxyaalaha farada badan oo foosh xun ay sameynayaan mid kalena qofka wax xun sameynaya qofka kala yuusan ku dayanin dad badan ayaa jiro isticmaala Facebook-ka Twitter-ka WhatsApp-ka oo uu isticmaala wax qabiil ku saabsan bas qabiil fulaan saan noqdeen qabiil fulaan waa saan qabiil fulaan waa saan qabiil fulaan waxay ka hadlaan oo dhan baa ku salaysan qabiil waxay ogaatiin qabiilkaadu waa qofka saaxiibka ah wax ku taraya qabiilku maalinka dhimatid ay waxaas kulli ay kugu dameynayaan marka waa wax in la ogaadaa marka dadka xumaanta sameynaya kuwan sameynayni waa inaysan ku dayanin ay ka fiirsadaan waxyaalaha ay sameynayaan
tahay mahadsanid marka ma wacan tahay in warar xasaasi ah baraha bulshada lagu faafiyo adiga mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay wanaag ka tahay warkaasi aad faafinayso mise digniin ahaan muu adeegsan kartaa wararka qofku horta warka fiican iyo warka xun waa cad yahay badi dadka baraha bulshada dad nooc walba ku jiro qof walbana dadka oo dhan ba isku faham maahan waxa adiga aad baraha bulshada dhigaysid waa inaad ka fiirsatid marka ugu horeysaba wax shaki gelinaya miya amniga iyo xasiloonida iyo walaaltinimada dadka u dhaxayso dad qaar ah jiro waxay ku hadlaan zaid loo fiirsado oo zaidna loo aamino ama zaid ay dadka wax kale ugu fahmaan marka adiga hadaad tahay crowd mover dadka yani badan ay ku xiran yihiin oo warkoodan la dhageysto badi waxaa lagaga baahan yahay waxaad qoraysid mise waxaad faafinaysid inay ahaadaan wax horta dhibaato dadka u keenay inaysan ahayn badi waxaad aragtaa nin ama MCA mise MP ama senator ama woman rep ama madax ay nooc ay ahaataba oo wuxuu raba iskaga hadlaa adiga madax hadaad tahay wixii afkaada ka soo baxa waa ina wax qiyaasan oo xisaabsan ay yihiin wixii aad sameynaysid ficilka sameynaysid waa ficil oo qof madax ka suurtagal waa inuu noqdaa laakiin ninka madax hadii fudeed iyo hadal ka hor babaxo iyo waxyaalo oo munaasab ahayn mise dadka kicinahay uu ka hadlo waa wax meesheeda maaha qofka markuu microphone ka qaadana anaga iyo dadkan madowga isku mid ma nihin Soomaali dadkan madowga zaid arimaha qabiilka uma qiimeeyaan qabiil afrikaan yihiin qabiil way qabaan oo qabiilahooda waxa way ku qaybsadaan wax way ku suubiyaan laakiin sida Soomaalida ficilka qabiilka ay u aaminto uma aaminsana iyaga marka waxa arki kartaa nin madow meel iska taagan nin madow kale weerarahayo oo hatta meeshu ka soo baxay weerarahay laakiin aysan wixii waxba dhaleyn laakiin waa nin madax oo Soomaali meel ha istaago nin kale oo Soomaaliya madax kale ama for example meel kale oo magaalo kale oo kamid ah gobolka ha ka hadlo arintii dhibaatay dhalaysa waxyaalo fara badan ay dhalin kartaa marka arimaha dadka badi ay qoraan ama ay ku hadlaan dhibaatooyin fara badan ka dhalan karo aad baa u mahadsan tahay marka maxaad ku dhihi lahayd qofka helo oo ay soo dhacaan fariimaha khatarta balse uu garanaynin saameyntooda fariimaha ku soo dhaca waa inaad isqiyaastid fariinta ku soo dhacaysidna adiga ha noqonin midka loo soo mariyo inuu faafiyo fariimaha xun oo fara badan oo dhibaatooyin dhalin karo ayaa badi anaga naftirkaan nagu soo dhaca telefoonahayna marka arimahaas qof walba inuu u dhacaan laakiin sidii ay kugu soo dhaceen hada adiguna u faafisid dhibaato ayaa ka dhalan karto marka fariinta ku soo dhacayso naftirkeeda ha noqonin qofkii wax walba sheega qof wax walba arko ama maqla sheega ha noqonin waxa adiga aragtid wixii xunood aragtid xumaantooda iyo meeshooda ugu tag wixii fiican aragtid inta aad gudbin kartid oo dad gaarsiin kartid gaarsii laakiin qofka wax ku soo dhacaan oo wixii asagoo hubsanin fahmin marka iska sii dir ha noqonin fariimaha xun hadii kugu soo dhacaan ka fiirso mar labaad ka fiirso mar saddexaadna ka fiirso hadii wixii waxa anfacaad ay leeyihiin faafi hadii wixii wax xun yihiinna ha sheegino meesha ku dhaaf inta badan baraha bulshada ayaan ku guda jirnaa reer Mandera ayaan isla nahay gruubyo badan ayaan ku jirnaa tusaale ahaan Mandera Tribune ayaa Facebook jiro gruubyada kale WhatsApp-ka iyadana way badan yihiin bulshada waxyaabo badan ay ku wadaagtaa waxyaabo badan ayaa la soo dhigaa si maalinlaha dhalinyarada ayaan u badan ku adeegsada marka sideen ku abuuri karnaa bulsho digtoon oo ka fiirsada waxyaabo baraha bulshada ay ku soo gudbinayaan warunta baro fara badan oo bulshada oo qaasatan dadka ismaamulka Mandera ay wixii joogo qurbaha iyo wixii wadanka joogaba ay ku wada sheekaystaan ayaa jiro marka warka lagu faafinayo marka qof walba oo ku jira meeshaas ama Mandera arrimaha Mandera wax ka quseeyaan waxa loogu baahan yahay marka inuu wuxuu dhigahayo oo ka fiirsado intuu la hadla karana uu ka fiirsado gruubahan admins jiro adminkan marka naftirkiisu waxa la rabaa inuu control u yeelo forum kasta oo madax ka yahay
maxaa yeelay meeshan dad fara badan oo kala dabeecad ah oo kala fufudeed ah kala culeys ah ayaa ku jiro marka dadkan wixii la rabaa la iska geliyo hadda waxaan arkay ayaan dhaweyto in la soo geliyey nin madax oo security in la soo geliyey oo la lahay ninkan waa nin noocaas ah waa nin noocaas ah waa nin dad dhameeyey waxyaal fara badan oo been abuur laga sheegay waxaas waxay dhib u keeni kartaa dadkii dhibaato ka gaartay dadkii magacooda la qaaday dadkii ehelkooda oo dhibaatada marka ay gaartay inay shakhsi ay taaban kartaa ay dhibaato u keeni kartaa ninkaas waxaa marka ninkaas haddii ay jirto waxyaalaha noocaas ah oo qof ku lug leeyahay waxaa jirta meelo lagu report gareyn kara nooc waxaas loo dabakici karo dadkii dhibka loo gaarsaday dad eheladooda jiro oo arrintii dabakici karaan laakiin arrin noocaas haddii lagu soo qoro baraha bulshada waxay dhibaato u keeni kartaa ninkaas oo wax laga qoray haddii ninkaas dhibaato u imaado oo dad kale dhibaato uga imaadana ninkaas dadkii ehelkiisa ayaa dhibaato kale dad kale u geysan karin waxay noqon kartaa wax fara ka baxay oo dhibaato weyn keeneen marka waxyaalaha marka lagu qoraa meelahaas waa in laga iska fiiriyo adminyaasha dadka maamulo foramyaashaasna ay fiiriyaan contentiga iyo wixii meelahaas lasoo dhigahay waa tahay aad baa u mahadsan tahay barnaamijkeena ayaan sii wadanaynaa qeybihii dhexe ayaan dhegeystayaal soo gaarnay cabdimeeja ayaa barnaamijka dhegeystayaal igu martiya waa gudoomiyaha dhalinyarada Mandheera ama Sheeman barnaamijka haddaan kusii soconno cabdimeeja weligaa fariin markuu soo dhacday mise muuqaal markii dambena been uu noqday ama been abuur noqday muuqaalkaasi maxaase samaysay adiga waa badan yihiin aniga hadda waxyaalo qaarkood waa confidential waxyaalo oo meeshan aan ka sheegi kara ma ahan fariimo fara badan ay soo dhaca maxaa yeelay dad sector dhamaale igu xiran oo wax laga wareysto bisha soo dhaafeynay waxa ii soo dhacday nin dhalinyaro oo warbixin xun laga gudbiyey oo been laga gudbiyey oo ninkii la dhahay waxbuu abaabulahayaa dhibaato ayuu geysan rabaa oo liila soo xiriiray oo ninkii markaan fiirin ninaan aqaano oo wax uusan ka fiirsanin le baraha bulshada iskaga qoray oo wixii le dabakac lagu suubinayay waxaan ka dhahay ninkan ninaan aqaano waa nin dhibaato geysanahay oo saasayna ma ahan marka waxaan waa waxa la iska qoro oo dhalinyartan baraha bulshada ku mashquulsan la iska qoraan marka wax ka imaana malaha ninkan inaan aqaano way anigana la hadlayo oo wax ku qasbay inuu waxaas noocaas qorana aniga wareysanayo oon dhahay oo laga gudbina way jirtaa oo arrintiina sidii aan u sheegay la noqotay oo dhibaato saas oo ka imaan ay jirin arrimo fara badan ay jiro dhalinyaro oo dhibaato isku dhac ay sameeyeen oo government institutions oo iskuulay ka mid yihiin isku dhac sameeyeen oo la dhahay marka dhalinyartaas ay tahay inay meeshaas ay institutionkaas dhamaale ay gubaan ay dhibaato u geystaan ay rabaan marka waa in la soo qabta la dhahay oo aan dhaxgalnay oo arrintiina fartiinta marka helnay arrintaas oo qatarta ayaa meeshaas laga sheegay oo reportkaas la helay maxaan ku sameeynaa la dhahay oo wixii markaan dabagalanay oo reportkii la dhibiyay wixii ay wax been yihiin soo baxday arrintiina xal ayaan ka gaarnay wax arrintaas oo dhibaato ka imaadin marka fariimaha noo soo dhaca oo been abuurka koowi laba maahan waxyaalo qaarkood waxaan sheegi karna ma aha waxaan xallin karnana waa xallinay waxaan xallin waynana nooc kale ay ku xalismaana lagu xaliyay marka fariimaha waa iska jiraan saa adiga fariina ku soo dhici marka waxyaalo fara badan oo been abuur lagu sheegaa qaarkood waxay ku sheegayaan inuu meersaas wax baa saas ka soo socdo way iska badan yihiin marka fariimaha been abuurku marka meel walba way jiraan Soomaalida sidee tahayba Mandheera ahaan horta been abuurku uu batay dadka isku dacweynaya been abuurka beenta iska sheegahayo dhibaatada u geysanahay dadka walaalahooda oo lacala oo dhib qabin way iska badan yihiin dhib weyn oo soo marnin waa jira hadeertan waxa saas weyn ma jiraan laakiin dadka fariimaha qaldan ay iska bixinayaan koowi laba maahan waxa jiro way aniga waxa intaas ay tan ku sheegay in ka badan ayaa isoo martay dhibaato iyo qatar nooce ayaa ka soo wajihi karta dhalinyarada iyo haweenka macluumaadka ay baraha bulshada ku faafiyaan sida noloshooda qaaska sidoo u saameyn kara warka been abuurka la iska faafiyo
ama beenta mase wararka been abuurta oo qofka uu ku qoro baraha bulshada waxay u keeni kartaa dhibaato fara badan. qof ayaad been ka sheegi kartaa, beenaad ka qori kartaa, qofkii yaa ku dacweyn karo, qofkii marka defamation damage waxyaalo fara badan u geysataa lagu dacweyn karaa, dacwo iyo maxkamadeyn iyo waxyaalo fara badan oo hataa marka ugu dambeysana xarig noqon karta ay kala kulmi karaan. dhibaatada intaas dhan oo waxaa keenaya marka hadalka beenta adiga aad faafisaa ku keeni karo. qofka dad qaarna waxaa jirta in laga warar been abuur ah oo sal lahayn in laga gudbiyo, oo warkii been abuurka ah dadkii marka lagu sii daba raaco oo baaritaan fara badan iyo dacwo fara badan iyo maxkamadeyn fara badan oo sanado socoto, oo markii dambena waxa lagu waayo qofkii waqti intaas oo ka dhuntay, dhibaato intaas oo la soo mariyay ayaa dhici karta. marka dhinac walbaba midka warka been abuurka dadka faafinaya iyo kan laga been abuurka laga faafinayo marka dhibaato ayaa soo gaarayso. marka waxa dulunka keena oo naxariista Ilaahay lagu waayana oo dhibaatada ay dadkan isu geystaan ay kamid tahay. dad qaarkood waxay isku xarbiyaan dhulkiya been la iskaga abuurana, marka waa la isku xiraa. waxaa dhici karta marmar kufsi aan jirin in korka la iska saaro, marmar waxaa jirta xatooyo aan jirin in korka la iska saaro. marka dhibaato fara badan ayaa ka imaada been abuurka. midda ugu sii daran waxaa waaye been abuurka siyaasadda marka la isku been abuurto oo been la iska sheego oo banaanka lala istaago, masaakiintu waxba fahamsaneen, wax qalad ee la fahamsiiyo, oo qof oo marka sharaftiisa iyo sumcadiisa meel looga dhaco dhibaato loo gaarsiiyo, waxyaalahaas oo kale ay keeni kartaa. marka been abuurka sideedaba marka midka beenta abuurahayana dhib ay u keeni kartaa, kan lagu been abuuranayana dhibaato ay u keeni kartaa. marka dadkeena waxaan dhihi lahay inay Ilaahay ka baqaan wixii diinta islaamka xarimtay oo been abuurka ah oo la dhahay qofka hadda gabar oo ayadaba iska gabar waxaa arkaysaa marka oo guur u wayn karto been laga sheego daraadeed, oo waxyaalo fara badan oo sumcad xumo ah. marka waxaan ku sheegaa taas waxaa jirta gabadhii sawirka loo saaraa mise cod kale loo saaraa, waxaa arkaysaa iyadoo galmo banaankaanayta lagu sameynaya, gabadhii waa gabar guur rabto, waa gabar nolol rabto. marka waxyaalaha been abuurka noocaas oo kaleeta nolosha marka gabdhaha naftirkooda ku dheeli kara. marka horumarka hadeertan oo baraha bulshada la gaaray la sheegay dhibaatadeeda ay leeyihiin. dad badan ayaa guur ku waayay, dad badan ayaa ku dhintay, dad badan ayaa dhibaatooyin kala duwan oo fara badan ku gaareen. marka been abuurka sidiisaba dhibkiisu leeyahay. qofka saas oo kale diinta islaamka hadeertan wuxuu leeyahay ciqaab weyn oo zaad u kulul uu leeyahay, oo qofka been abuur ku sameeyay gabar oo sharafteeda iyo sumcadeeda ay fiican tahay been abuur ku sameeysto waxay in 80 jeeda lagu dhifto kaleeta hadaan qaldaneen. marka been abuurka noocaas oo kaleeta keeni kara arrimaha noocaas oo kaleeta. marka wayna dhacdaa TikTok hadda daagishada deertan waxaas qor ah loo leeyahay, wixii marka qortid waxa ku soo baxa site dhamaala oo ayaga dhamaala wax galma kale ay ku jiraan, wixii sawirihii la isticmaalayeen kulli ay yihiin gabdha Soomaaliyeed. gabdhaha la iska soo qaadanaa site-ka laga buuxinaa codaa la saaraa. marka waxay u keeni kartaa marka gabar hadeertan qof arkay hadduu hataa qofkan damacsanay inuu gabadhan guursado meeshu ka carara marka waxaa arkaysaa marka gabadhan waa ku guur waysay, ninkii guursan lahayd waa ku guur waayay, sharaftii meesha waa ku dhuntay. marka been abuurka ay kamid tahay ummadeena. marka waxaan dhihi lahay inay dhalinyaradeena khaasatan inay waxaas iska ilaaliyaan. mid kale gabdhahan oo TikTok ka buuxo wada niikinay naftirkooda, idinka fursad siinaysa in leenku been abuurto. waxa fursad keenahay dabadan aad qaawisay oo banaanka aad soo dhigtay oo xayeysiinaysid ayaa keenaysa dhibaatada ugu weyn inay dhalinyartan idinku mashquulaan, ay ka faa'iideystaan, ay idinku been abuurtaan. adiga banaankaas dhigtay sawirkaada fursadaas adigoo sawirkaada fiigaga sawiran oo dabadaada banaanka taal oo naasaada banaanka yaalaan oo dhaxdaada banaanka taalo, adiga fursad siinaysid in lagu been abuurto. waxyaalaha sahla been abuurka ay kamid tahay oo gabdhahan marka sharaftooda dhulka la gala. marka ma kula tahay in dawladda ismaamulka Mandera ay dadaal ka wado dhanka ka hortagga iyo soo afjaridda wararka xumaanta iyo beenta salka ku haya, sideen u dhiirigelin kartaa adeegsiga wacan ee digitalka? dawladda county Mandera
waxaa jirta idaarad dhamaalo oo la dhahaa Department of Cohesion, Conflict and Counter Radicalization Department. waxyaalo fara badan waa department noocaas ayaa jirto. Department-gaanayta waxa ugu weyn ay shaqadeeda ay ku mashquulsan tahay waxaa waaye wadajirka, isku dhaweynta bulshada, xalinta khilaafaadka, arrimaha xagjirnimada, waxyaalahan ay shaqadeeda ay tahay. marka xalinta khilaafaadka waxyaalaha fara badan oo la isticmaalo waxaa waaye inay naftirkeedaba been abuurka iyo waxyaalaha keena isku dhaca bulshada ay ka shaqeysaa. marka wax walba ay tallaabo kasta ay qaadaan marka waxay geliyaan ayagana county government page ayaa jiro, waxaa jiro idaacadahan ay isticmaalaan, waxyaalo fara badan ay qabtaan ayaa jirto. marka been abuur way adag tahay sida lagu istaajiyo, maxaa yeelay bulshadii oo dhan baa ku howlan been abuurka, naftirkooda ayaaba target marka badi waxaad arkaysaa khilaafaadkan farada badan oo waxyaalaha lagu shido dabkaasi baasiinka looga dhigana ay tahay been abuurka. badi inta ugu badan waxaa ku dhex arkaysaa idaaradaas oo dowladda ka tirsan oo conflict arrimaha khilaafaadka u xilsaaran. marka waxaan dhihi karaa dowladda waxyaalo fara badan ay sameysaa, waxay la shaqeysaa oday dhaqameedyada countiga Mandera, annaga naftirkeena dhalinyarta way nala shaqeysaa, haweeney la shaqeeyaan ay jirto. marka waxaan u maleynaa marka ayaga naftirkooda targetkooda way ku jirtaa in arrimaha been abuurka naftirkeeda laga hortago. laakiin dowlad way ku adag tahay si ay uga hortagto arrimaha been abuurka, maxaa yeelay wax ugu badan oo laga been abuurta ayaga ka mid oo waxay qabtaan ma qabanin, waxay qabaninna ma qabanin. mar ma arkaysid la dhahayo dowladda waxbay qabatay, maxaa yeelay dowladda dirtan iskuul hadda la furay, dadkii waalidiintii dhanba waddanka dhanba waxaa stress ugu weyn waxaa waaye ilmahaas aan iskuul ugu celinaa ayadoon ay jirin lacag hadeertan mise fiiskii ardaydii lagu bixiyo. waxaa arkaysaa marka Mandera County waalidiinta stress ma qabaan oo ilmihii hadeertan iskuulkii kulligooda 100% iskuulaha aadeen. wax qof mar inuu meel istaaga dhaxaya ma lahan dhibkan aan qabi jirnay awal. marka hadeertan dowladda dhibkan ay naga dajisay, waxa meesha lala taagan yahay wax ay qabteenba ma lahan. marka dowlad say ugu hortagtay been abuurku waa adag yahay, waxaan ku dhaawaa saas, maxaa yeelay targetka ugu weyn waa ayaga. laakiin stan ani maleynayay inta ani aan ka fahamsanahay dowladda Mandera County government way ku howlan tahay, wayna ku jirtaa arrimaha ka hortagga been abuurka, khilaafaadka iyo wixii la mid ah. waa tahay marka ugu dambeyn maxaa isbedel ayaad rajeynaysaa in Mandera ay ku tallaabsato dhanka dijitaalka iyo ka hortagga wararka been abuurka dhalinyarada iyo haweenka iyo odayaasha iyo bulshada guudba? maxaa baaqi u diraysaa barnaamijkan aad ku soo xiraysaa? horta annaga haddaan nahay Soomaali, haddaan nahay reer Mandera, midda ugu weyn waa inaan iska ilaalinaa oo aan aqligeena isticmaalnaa arrimaha been abuurka. totally inaan iska istaajino waa muhiim, maxaa yeelay annaga arrimahayn waa arrimo iska jilacsan. dadkayn waa dad oo qabiilku ku seef gareysan yahay. hadal yar oo adiga ka soo baxa waxay dhici kartaa in dhibaatooyin uu sababo. marka mid ugu horeysa horta waxaan ugu baaqi lahay dhalinyarta iyo dadka isticmaala baraha bulshada inay iska ilaaliyaan hadallada xasaasiga ah oo dhibaatada keeni karo. midda labaad, qof walba waa inuu mas'uuliyad iska saaraa uu la hadlaa qofka asaga xigo ama saaxiibkiis ah oo ku howlan arrimaha been abuurka oo keeni kara dhibaatooyinka. waa inaad la hadashidaa, mas'uul iska saartid. haddii adiga qof mas'uul aad tahay oo qof aqli leh aad tahay, qofka kale oo fudud oo mise adiga saaxiib kula ah ama walaal kula ah intaad waanin kartid waa inaad waanisid oo dhahdid hadalka been abuurka waa dembi mana fiicno. mid kale qofka dhibaatooyinka nooca been abuurka laga gudbiyo sharci ayaa jiro, wadan sharci uu ka shaqeynayo waaye, sifa ay u faafin arrimaha been abuurka iyo dhibaatooyinka la iskugu geysto been abuurka. qofkaas waa inuu dacwoodaa oo qofkaanayta dembiga hadduu ku jirin wixii been abuur lagu been abuurtay tahay waa inuu dacwoodaa oo
arrimahan defamationka oo sumcadiisa iyo sharaftiisa meel looga dhacayo inuu ka dacwoodaa oo qofkii dembiga geystay dembigiisa waajibka iyo wixii ka dhashay u qaato. Marka intaas ayaan ugu baaqi lahay. Arrimahaas been abuurka waa arrimaha ugu weyn oo dhibaatada weyn nagu hayo oo bulshadeena isku dirahaya oo wadankeena amniga ka qaadahayo oo dhibaatooyin barakac iyo dhimashada noo keenahayo waayo. Marka waa inaan iska ilaalinaa siyaasad xumadan ayaad keenta qofka dadka waa inay siyaasad israacsiinin ay siyaasad diimeynin ay siyaasad qabiileyn ay iska fiiriyaan waxyaalaha noocaas oo kaleeto. aad iyo aad baa u mahadsantahay Cabdi Meja gudoomiyaha dhalinyarada Mandera. dhegeystayaal halkaas ayaan ku saafmeeraynaa xalqadeena maanta oo diiradda ku saaraynay wararka been abuurta iyo saameyntooda. nagala soco dhegeyste waad ku mahadsantahay dhegeysta la jaanqaadkaaga nalaga soo baraha bulshada Facebook, X iyo YouTube. ciwaankeena waa danta dalalka deriska. xalqada xigta waxaan diiradda ku saari doonaa dhegeystayaal dastuurka bulshada. ilaa iyo kulanti dambe maca salaam. Mandera waa xudunta xadka Kenya, Soomaaliya iyo Itoobiya. sanado badan Mandera ayaa qarka u sarnayd amni darro. juqraafi ahaan marka laga soo tago xadka ayaa haddana mid kale oo sababa arrimo badan oo saameeya Mandera. shacabka ayaa u soo dhabraadeega amni darrada. xalqada xigta ee barnaamijka danta dalalka deriska waxaan diiradda ku saaraynaa dadaalada iyo siday markaasi bulshada uga caawin karto laamaha amniga, wada shaqaynta iyo sugidda amniga. barnaamijka danta dalalka deriska iyo xalqada ugu dambe wajiga koowaad dhigtana u raarici Dawa FM. goor sheegtadu kolkay soo dul istaagto la wada doornimo axada.